waxaa la soo wariyay dad ka qaxay magaaladoodii ayaa rabay inay ka tallaabaan waadiyaasha mid ka mid ah waxay go'aansadeen daal tiro badan inay buurta dusheeda ay ka dhistaan teendho kuna nastaan dadka meesha fadhiya mid ka mid ah madaxiisa ayaa waxaa ku soo daatay carro iyo qururux yaryar waxayna dareemeen walwal waxayna is yiraahdeen ma buurta qarxi rabto oo falkaana ayaa ka dhici rabta meesha mise dhul gariira ka dhici rabo walwal tiro badan iyadoo wadnaha farta lagu hayo waxay ogaadeen xaqiiqda waa maxay xaqiiqda waxay ogaadeen duleelada mid ka mid ah buurta dhexdeeda inuu doolli ka soo dhaxbaxay taas ayaana keentay inay ciid meesha ka soo daadato odayaasha mid ka mid ah ayaa qoslay kuna yiri buurtu way foolatay waxayna dhashay doolli waxaa haatan jaleecaynaa madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya muxuu ka yiri arinta dawladda xilligaas jirtay iyo sidoo uu mucaaraday haatanse dawladda Soomaaliya hadda uu madaxweynaha ka yahay dadka ka soo horjeeda muxuu ku tilmaamay bal ila daaw ku dhacaayeen waa la wada og yahay wadan shakhsi ah waxaa laga yaabaa in kastoo ummadda Soomaaliyeed kulli ay wada og tahay in labadaas dawladood hore loo riday dan shakhsi ah iyadoo loo dareenayo shakhsi haddana waxaa la rabaa electionka ama doorashada in lagu carqaladeeyo dan shakhsiyadeed annagu ka yeeli mayno ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay il gaar ah ku fiiriya hana ogolaanina isbedelkaana waa in laga wada qayb qaato maxaa yeelay dawladdaani dhinac walba u fashilantay waxay ku fashilantay oo ay iyagu cadeeyeen oo waliba madaxweynuhu naftigiisa dhowr jeer yiri annagu waxa naga khaldan buu yiri siyaasadda oo hadda marka haddii siyaasaddu ay khaldan tahay maxay meesha u fadhiyaan marka siyaasaddu waxa weeye waa indhihii iyo dhagihii iyo maskaxdii lagu hagaayay ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed weeye waxa kale oo ay ku fashilmeen dhaqaalihii anuma arag madaxweynahan iyo dawladdiisa iyagoo ka hadlaya waxa la yiraahdo economic development ama horumarinta dhaqaalaha oo ah investment waxa la yiraahdo ama maalgelinta taasoo lagu yareynayo shaqo la'aanta dalka ka jirta marka runtii dhan kasta waa ku guuldareysteen waxa ugu sii daran dhanka amniga oo hadda daraad aan ognahay wixii liida ka dhacay dad masaakiin oo maxaan ku raahdaa masaakiin inay meeshaas ku baaba'een ku laadeen Allah u naxariisto intii dhimatay intii dhaawacantayna Allah ka kiciyo maalin walbana waxaan ku jirnaa tacsi iyaguna waxay ku jiraan tacsi iyagii oo dawladii oo fadhiya meesha mas'uuliyadii hayay shacabkii waa isku tabar marka taasna waxay cadeynaysaa inay ku fashilmeen dhankii amniga inay ku fashilmeen way cadeynaysaa dhankii dhaqaalaha waa ku fashilmeen dhankii xitaa uu diyaarinta maxaa ku raahdaa electionada iyo doorashada naftigooda waa u jeednaa inay ku fashilmeen waa xaqiiqa soddonkii sano oo la soo dhaaf wax badan yaa naga halaabay waxaa naga halaabay dhalinyaradii halkan noogu timid yararka ahaa ee boondheer ka timid hadalkooda waxaa ku jiray siyaasiyiintay duraayeen dhalinyarada yararka ahaa siyaasiyiintay duraayeen soddonkii sano waxaa batay siyaasiyiin xanaaqsan siyaasiyiintii xanaaqsaneed dhaqankii ay halleeyeen waxay xalaaleeyeen beentii waxay xalaaleeyeen inaan la shaqaysan wax badan oo diinta islaamka diidaysa iyay xalaaleeyeen waa siyaasiyiinta xanaaqsan siyaasiyiin faraxsanna waa jiraan siyaasiyiinta xanaaqsan waxay ka shaqeeyaan waa run mustaqbalka Soomaaliya danka malaha waxaa u daran dantooda shakhsiga yaa u daran waxay ka hadlaan negative wax xun ayay ka hadlaan wax dadka qalbi jabinaya ka hadlaan waxay ka hadlaan dalkan waa burburay ma soo noqonayo waxay ka hadlaan beesha caalamka noo timaado oo hana dhexdhexaadiso waxay ka hadlaan waana laga adkaaday haatan waxaan isdul istaagaynaa dunida waa la yaabay xildhibaan dalxa shalay wuxuu ahaa nin sumcad ku dhaxlay baarlamaanka xilligii uu joogay Jawaariye wixii ka horeeyay balse dawladda Xasan Cali Kheyre iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bahdil ku sameeyay golaha baarlamaanka dhexdiisa gudoomiyihii shalay uu doortay ayaana bahdilay loona sheegay lagu amray waxa uu ka hadlay inaysan munaasab ahayn kana dago mikrofoonka
yimid khilaafna waa dhammaaday waxa hadda ee la buunbuuniyo oo lasii wadwado meesha ma yaalaan mahadha ka gaadho gudoomiyaheenii maxamed cismaan jawaari mar haddiiba isaga uu yiri mooshinkii waan ogolaaday khilaafna meeshuu ku haray waxa inoo dhiman waa codkii kalsoonida oo la qaado haddii aan guulaystana sidii sharciga uu qabay gudoomiyaan ahaanaya haddii layga guulaystana wixii raggii iyaga ka keenay mooshinka gudoomiye cusub ay soo dooranayaan. bismillahi raxmaani raxiim mahadsanid mudane gudoomiye gudoomiye koowaad guud ahaan xildhibaanada saaxiibadayda ah ee golaha shacabka howlwadeenada golaha shacabka iyo bahda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu mudane gudoomiye uma aan istaagin wax kale keliya waxaan doonayaa in baraarujin iyo isxusuusin maadaama golaha shacabka uu yahay wakiilka rasmiga ee bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan mudane gudoomiye usbuucii aan soo dhaafnay waxaa dhacay falal dembiyeedyo oo aada runtii u xanuun badan u qaab daran u foolxun oo diinta islaamka iyo dastuurkaba ay taabanayso marka waxaa rabaa annaga amni waa ka hadalnay waxaan ka hadalnay wixii la dilay iyo ciddi dishay iyo waxaas waxaan ugu mashquulin waxaan rabnaa xeeroosaadkan yana point of order aad qaadatay waxyaaba simple ah ka hadal ajendaa kusoo noqo haddaan ajendaa ka hadlaynin inaa fariistiidaan soo jeedinayna gudoomiye waa mahadsan tahay laakiin waxaa jiri jirtay iyadoo ajendaha laga hadlayo wixii soo kordhane inkastoo aan lahayn ajendaha laga dhigo laakiin waxa maalin dhaweyd annaga xikmadan keennay oo la yidhaahdo nyaanyo marka laga doodo nyaanyo waa inay meel fuushaa nyaanyo aan nagu soo noqon 3 maalin ayuu golaha ka dooday amniga wax ku saabsan amniga wax ku saabsan guddigaan u dirnay guddiga amniga iyo guddiga difaaca hawshaasi waa lagu maqan yahay dhamaystirkeedna ayadaa laga sugayaa waxaan u baahannahay marka amni ha ka hadlin xeeroosaadkaasi haddaa kaa dhaysid haddii kale hadalka gudoomiye anoo qaadanaya runtii taladaada laakiin wax guracan hadday dhaxaan waa la cambaarayn jiray haddaan ka aamusnana bulshada waa nagu dagaalaysaa ogaada maanka miidiya wuxuu kuu soo bandhigi doonaa xaqiiq walbo kaa daha qarsoon balse gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay ma aaminsan tahay wiilasha Soomaaliyeed iska dhigay gabdhaha in ayagu dooqoodu tahay mise waxaad aaminsan tahay inay sabab ka dambayso oo aan la aqoonin waxaan kuu soo bandhigaynaa wiisanka ama sababta ka dambaysa daawasho wanaagsan barnaamij midkan la mid intaan ku kulmi doono daawade sidaa iyo nabadgelyo waa arin xanuun leh wiil iyo aabihiis ayaa la his hor keenay wiilka ayaana doortay xagga dumarnimada iyadoo waxbarasho wax walbana laga soo wada bixinay waa qiso aad u xanuun badan ila daawo ku soo dhow qaybta wiilka soo dhow fadhiiso halkan aabihi ayaa loo mahad celiyay lagu yidhi waa ku mahadsantahay joogista halkan aad joogtid waadna kaaga mahad celinaynaa asagoo oynayo ayuu fiiriyey waxaana la weydiiyey su'aal kale waxaad inoo sheegtaa waxa aad ku fakaraysid waxa aad dareemaysid wuxuu ku jawaabay asagoo oynaya waxaan dareemayaa xanuun aad u daran weliba aad u daran xaqiiqdii waxaa la weydiiyey maxaad rabtaa inaad tiraahdo wuxuu yidhi su'aal waay sabab wiilka ayaa hadalkii dafay wuxuu yidhi hadda wax qaldan ma aanan samaynin wiilka ayaa la su'aalay maxaad ka leedahay falcelinta aabbaha iyo muuqaalkiisa wuxuu ku jawaabay aad bay u xanuun badan tahay laakiin ma sheegi karo inuu xanaaqsan yahay in kale laakiin wejigiisa waxaan uga jeedaa inuu murugsan yahay waxaa la weydiiyey lagu yidhi wiilka haddana aabbaha
wuxuu ka xumaaday waxa aad samaysay maxaa rabtaa hadda inaad tidhaahdo wuxuu ku jawaabay hadda waa inaad fahantid waxaan hadda aniga ahay waa inaad qaadato waxaan ahay haddeer su'aal kale ayaa lagu celiyey lagu yidhi aabbaha wuxuu xasuusanayaa ama nabar ku noqotay kelmad uu ku yidhi aabbihi ayaa soo booday yidhi haa kelmaddaas waxay ahayd wuxuu soo xirtay maalin dharka dumarka maalin xalfad jirtay ayay ahayd waxaan kuu dhahay aad ayay ugu qurux badan tahay kelmaddaas keliyaan dhahay aniga waan iska ciyaarayay waxaan ku yidhi waxaad tahay gabadh aad u qurux badan laakiin hadda maahayn gabadh aad u qurux badan waa wiil aad u qurux badan waxaan isla sheekadan su'aal ka weydiinaynaa qof ka tirsanaan jiray alli Seattle memberka ciidanka goonida loo tababaro gabadhan ayaa asalkeeda ahaan jirta nin 13 jeer ayaa loo qaaday Middle East-ga nasiib wanaag hadda way nala joogtaa ku soo dhaw barnaamijka wiilkii gabadha ahaan jiray ayaa hadalku ku bilaabay si kulul waliba yirina waa inaad fahantaan waxaan hadda anagu nahnay waxaanu ku sugannahay waa muhiim inaad fahantaan halkan waa muhiim inaynu isla darayno annagu noloshu waa ognahay inay adag tahay meesha aan joognana waa meel adag annagu ma aana dooranin qof kale ayaa inoo dooray noloshan waanu ku qasbanay inaanu qaadanno noloshan like Trans Visibility Day and dadkana waxaan rabaa inaan u sheego nolosha markaad tahay qof labeeba ama transsexual wallahi aad u dhib badantay you don't know qof oo maanta dhahaya qof yacni bini aadanimo maanta waa dooranayaa waa ogtiin Christian waa nibac yihiin Muslimin waa nibac qof walba wax I'm transgender and I'm Somalian I'm so happy I just want to tell you that I love you so much I don't want to cry